Bismillaahi Raxmaani Raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka ee Naafic Show waa 21 Juulaay sanadka 2025 qodobada qaybtan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ukraine iyo Ruushka oo maanta aad moodo duqeyntii ugu cuslayd inay isweydaarsadeen in ka badan 140 duulimaad oo guud ahaanba la kansalay iyo Kiev oo gubanaysa Ruushka jawaabta uu ka bixiyay waan kula wadaagi doonaa kusoo dhawaada mar kale iyo falanqaynta caalamka iyo Naafic Show aynu ku bilownay dagaalka u dhaxeeya dowladda Ukraine iyo Ruushka ayaa sii xoogaysanaya Ruushka maanta weerar aad u culus ayuu ku qaaday gudaha dalka Ukraine isagoo ka jawaabaya weerar diyaaradaha droonka loo adeegsaday oo markii hore reer Ukraine ay ku qaadeen magaalada Moscow iyo magaalooyin kale aynu ku hormarno wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ukraine dhimasho iyo dhaawac ayaa la diiwaan gelinayaa sidoo kalena waxaa barbar socda burbur xarumaha la bartilmaameedsaday gaar ahaan xarumaha dowladda iyada oo si gaar ahaaneed loo bartilmaameedsaday kaabayaasha dhaqaalaha xarumaha ciidanka ay isticmaalaan Ruushka diyaarado drones ah iyo sidoo kale gantaalada cruise-ka ah iyo gantaalada nooca hypersonic ah ee Kinzhal loo yaqaano ayuu maanta u adeegsaday weerarka uu ka furiyay gudaha dalkaasi Ukraine waxaana gubanaya magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gudaha dalkaasi muuqaalada waa berigii maanta la soo bandhigay ayaa muujinaya holac iyo uurada cirka isku shareertay kadib markii duqeyn aan kala joogsi lahayn Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine